Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dhammaan Soomaalida iyo asxaabteeda meel kastoo joogtaan aad baan idin salaamay dhammaantiin. Maanta sheekan idin hayaa sheekadan waxay ka dhacday wadanka Iiraan bay ka dhacday. Waxay ku dhacday wiil taksiil ah. Sheekada intaana bilaabin waxaan rajaynayaa inaad subscribe iyo saari doontiin channelka. Like-na aad igu caawin doontiin haddaad sheekada ka heshaan si aan u ogaado na soo badiyo sheekooyinkana insha Allah aad like-ta la tiigsan doontaan. waa lacag maaha. sheekadan waxay ku bilaabmaysaa wiil dhalinyaro ah oo taksiila ayaa dhacday maalmaha ka mid ah in isagoo ordaya oo qoortiisa dhiig badan ka dareeriyo uu soo galay isagoo ku qaylinaya iga qabtaa iga soo gaadhay ayuu soo galay xarun boolis buu soo galay. dan markii booliskii maqleen hadalkiisa iyo qayladiisii way soo dareereen wiilkii bay qabteen maxaa kugu dhacay waa la weydiiyey. dan markaa waxaa jirtay in ay eryanayeen labada qof ee qofkan dhibaatada gaarsiistay. isla markiiba booliskiiba banaanka u baxay wiilkii yaraaba ishaaray markaa tusay labada qof inay eryanayaan ay doonayaan inay dilaan. booliskii markay arkeen labadii qof way yaaceen waxay nin iyo gabadh bay ahaayeen. ninkii gabadhi way yaaceen booliskii way eryadeen adugu dambeyn waa lasoo qabtay saldhiggii baa lasoo dhigay macnaha waa lasoo xidhay. markii lasoo xidhay wiilkii nabarkiisii loo dhayay la dejiyey ayaa waxaa dhacday in wiilkii la wareystay waxaa lagu yidhaahday dadkan maxay kaa rabaan ama dhibaatadii kuu dilayaan maxay tahay. wuxuu yidhi dabcan anu horta wax mushkilada iskuma ogi laakiin waxaa dhacday ninkaas inuu iga soo raadiyey halkan ka shaqeeyo ama istaankayga maadaama taksiila aan ahay. dan wuxuu iga codsaday isagii xaaskiisa inaan qaado oo aan geeyo magaalo hiblaayo. markaa anu wuxuu yidhi maadaama aanu taksiilahay dadkana aanu shaqeeyo waan ogolaaday buu yidhi. markaa waxay igu raadeen magaalada markaad nageysid aduu 2 saacadood ilaa 3 saacadood inta udhaxaysaad na sugaysaa dan waad soo celinaysaa magaalada nagu soo celinaysaa markaa lacagtaadana waanu ku siinanaa. baan ku yidhi waan qaaday buu yidhi. markaa wuxuu yidhi markaan siday magaaladii geeyey sida ii sheegeen 2 saacadood bay ka maqnaayeen kadibna way igu soo laabtay way la soo hadleen waanu isku nimidnay dadna waan soo qaaday buu yidhi. halkii aan macnaha ku dejiyey baan ka doonay dadna magaaladii wadadii markaa soo fuulay buu yidhi ayaan magaaladii aan ka tegnay oon aniguna deganay aan usoo socono aan welibana magaaladiiba aduu waa ilaa meelaha habeen baa soo gelaya. wuxuu yidhi aan magaaladii aan ku soconay baanu qarka usoo saarano in yar aan usoo jirno ayuu wuxuu yidhi labadii ruux waxay bilaabeen inay dagaalamaan. wuxuu yidhi way iscaayaan xataa waxay doonaan bay isku dhahaan. wuxuu yidhi dan aan waan shakiyey buuri. markaas wuxuu yidhi dan acbaar baan fiirsaday dadkii marna muraayadan ka eegaya marna waan yar eegaya waan jileecaya. wuxuu dagaalkoodii wuu sii kacaya marka dambeysa wuu sii badanaya dagaalku xataa in gacan laysa saaraya in yar loo jiraaba. wuxuu yidhi markan inta hore socday wuxuu yidhi maskaxda ka shaqaysa waxaas yidhi dadkii maanta dhanaad siday aad iminkana ilaa maanta soo siday sababtay hadda isku leynayaan oo magaaladii soo gaadhay maxay tahay nimanka dadkan bilay wax damacsan yihiin. wuxuu yidhi waan shakiyey dareen bay galay markaa wuxuu yidhi waxaan go-aan ku gaadhay markiiba in wadooyinka aan marayo aan ka dhigo wadooyin dad socdaan oo dad joogaan ama saldhigyo boolis u dhow oo malaydhar leh. wuxuu yidhi dhammaan wadooyinkii madooba ama aan isdhahay waa lagugu dagi karaa dhawaa kasoo leexday wadooyinka iftiin kale baan maray habay igu fogaadaan buu yidhi kuwaasaan maray because waan shakisanahay buu yidhi. dan wuxuu yidhi markaan muddo socday ayaan wuxuu yidhi hal mar ila ilaahay bay badbaadinayee ayaan waxaan arkay buu ayaan jeestay buu yidhi. markaas waxaan arkay ninka xaaskiisii oo mindi la soo baxaysa. markiiba wuxuu yidhi intan gaarigii breega qabtay ayaan wuxuu yidhi aya gabadhiina intay soo kacday ay mindidii bay la soo tiigsatay ka taag bay malays lahayd. wuxuu yidhi markaa mindidii halkaa qoorta iga sartay anuuna horaan gaarigii u soo galay waxaan steeringan ku dhigay gaarigii baan biida dhigay deg baan daaqadii uga soo booday buu yidhi. isla markiiba waan soo carray halkii saldhig boolis igu dhaweed baan u carray buu yidhi. way soo eryadeen markaa iyagoo eryanaya waa ka saldhiga soo galayba ee saldhigii miday. wuxuu yidhi saasan dee aan ku badbaaday marka waxaan ka qaaday dhibaataan u geystayna dadka ma garana
waayay baa lagu yiri waa la iska nafis baa lagu yiri ninkii naagti baa loo yimiday waa la soo saaray mid boqol baa la geeyay waa la soo wareystay ninkii baa loo tagay lagu yiri ninka maxaad ku dilaysaan wuxuu yiri ninkani wuxuu rabay marka inta badan dadka haday qofka dambiga gale haday qof iyo wax ka badan yihiin la isku maag wareysto waa wax la diidaya hadallo isku mid ayna dhahaan waa ismaqlayaan qofkani wuxuu dhaw qofkana kugu dhahaya markaas si taas aan u dhicin inta badan dadkan dambi baarayaashu waxay adeegsadaan inay labada qofba kala wareystaan ama mid baa jeelka ku sii jiray mid baa la soo wareysanaya jeelka lagu celinaya kii kale la wareysanaya ama laba qolo adoo laba dambi baara loo kala diray labada dambi baara doonay inay kala wareystaan oo hadii la hadalladii ka soo baxayba haday islahaadaan labada qof ay run sheegayaan way siiyaan hadalladii hadii ay dambi leeyihiin way isdhaafaan labadii qof baa la wareystay ninkii baa yiri ninkani gabadheedu kufsaday buu yiri saasan doonayna u dilo ma gabadhaadu kufsaday haddana gabadhii baa loo imid oo lagu yiri ninkan ujeedada u dilaysaan dhibaatadu idinka galay ama dambigu idinka sameeyay maxay tahay waxay tiri ninkani wuxuu rabay inuu kufsado ma yaran way kufsaday laakiin waxay tiri wuxuu rabay inuu kufsado ninkina muxuu dhahay wuu kufsaday buu dhoreeyay marka labadooda hadal isma laha adoo markii taxqiiqi ama baaritaankii socday muddo waxa la go'aansaday waxna la soo saari waayo wax soo buuran waxa la go'aansaday dadkan identity-gooda in la baaro ama aqoonsiyadooda iyo magacyadooda iyo meelaha degaan iyo waxaas waxa la ogaadayba ninkan iyo gabadhan bilo ka hor inay u xidhnaayeen dilkana ay u geysteen nin taksila sida ninkan oo kale waxa la yiri danaw ninkii baa loo tagay waxa lagu wariyay hebel soomatid ninkii bisha amba labada bilood ka hor u xidhnaa dilkaas noocaas wuxuu iska soo jaray may aniga dambiil waa la soo qabtay waana la soo xiray laakiin wax dambi waa liigu waayay waxaana liigu sii daay damiin baa liigu sii daay waxa lagu yiri haddii maalintii hore dambi lagugu waayay maanta oreed waa lagugu hayaa ninkaas aad u dilaysay ee aad u damacday inaad u dishid baad ninkana u dilaysay marka ninkan wuxuu u sheegay ciddii dilaysay ama dhibaatada gaarsiinaysay isaga inaanu ninka ahayn laakiin uu gabadh ahaa aduu baaritaan baa la sameeyey ninkiiba aduu jirdil baa lagu sameeyey labadoodiiba qirta sheega aduu markii dambe way qirteen dambigii wuxuu yiri in markaa ninkii wuxuu yiri anuu waxaan ahay buu yiri nin aan shaqo haysan xaaskayguna ma shaqayso mana lihin il dhaqaale oo lacag naga soo gasho ama waxyaabaan ku noolaano maadaama dadka saas aanay waxaanu ka fikirnay inaan samaysano il dhaqaale wuxuu yiri maalin maalmaha ka mid ayaan u tagay ninkii dhintay ee aanu dilay waxaan ka codsaday inuu magaalo Hiblaayo noo qaado markii uu naga ogolaado uu qaaday intii aanan magaalada gaadhin baan dilnay marka ujeedada u dilnay waxay ahayd oo kaliya inaan anagu gaarigiisa dhacno gaarigiisa markaan dhacno aan iibsano kadibna aan dhaqaale ka helno markii aan ninkii dilnay waxaan iskaga tuurnay meel cidla baan ku tuurnay gaarigiisa baan ku xaysanay gaarigiisa markaan ka xaysanay waxaan u geynay magaaladii aan ku soconay maadaama aanan gaariga sharci u haysanin oo uu gaari aan soo xadnay ahaa kumaanan iibin karaynin si sharciya waxaan u marnay si sharci darra inaan u iibino suuqa madow aan dabacnay inaan ku iibino markaa nin taksiiloo kaleba gaariga hunguri ka galayo dabacay inuu naga iibsado markaa ninkaasi ayaa nagu dhaanaa idinka iibsanayaa markaa ninkan gaari buu watay gaari caadi buu watay oon taksi ahayn laakiin taksiilo ahaa deedna wuxuu nagu yiri gaarigaan rabaa in iska soo tijaabiyo lacagtiinana waa disiinayaa gaarigiisiibu markii halkan kaga sii tegay kiiba nagu kaxay anaguna waan raacna wuxuu yiri markaan sii soconay jidka ayaa waxaanu ka fikirnay haddii gaarigana laga qaato oo ninkan inaga iibsado berika maalin in la soo xaday baa la ogaanayaa din annagana waa nala soo raadsanayaa ta kale labaadan ka fikirna waxay ninkani inuu sito xoogaagii lacag ahaa ee uu gaariga naga siisanay marka waxaan idhi intaad gaarigii laydinka qaadan lahaa idina lacagta intaad qaadataan dib laydii soo raadin lahaa laydin heli lahaa ninkana lacagta ka qaata oo dila isagana gaarigana isaga taga
deedna sidii aan ninkii hore u dilay isla dariiqii ayaan u dilay, aniga gabadhaydaa wada dilay. Markaanu dilay waxaanu qaadnay ee aanu hubsanay inuu ninkii dhintay, intaanu meydkiisa qaadnay jiidnay baanu ka tuurnay, buur baanu ka tuurnay. buurtii markaanu ka tuurnay baanu deedna xoogaa baanu sugnay bal ninkii inuu bal meelahan dhow ku dhacay iyo inuu fogaaday iyo inuu meel fog ku dhacay. mise waxaan maqalayba ninkiiyo taahaya oo qaylinaya oo jajabkii ku dhacay, maadaamuu dee buurta intaale kasoo dhacay, jajabkii iyo mindidii awalba lagu taagtaagay darteed la qaylinaya oo cabaadaya maqala. marka waxaan ku qasbanaaday buuri intaan dego inaan ninka usoo dhameeyo. wuxuu yidhi bartii baan ka daadegay, buurtii baan hoos uga daadegay, bartii ninku yaali baan tegay, dina mindiyo kale aan kusoo taagay si aan nafta u wada dhaafiyo hal mar. wuxuu yidhi markaan soo dilay aan soo hubsaday inuu dhintay, dib baan usoo laabsay. waxaan kaxaysanay buu yidhi markaa gaadhigii tagsiga ahaa. tagsigii markaan kaxaysanay ee aanu tagnay halkii gaadhiga caadiga ahaa taaganaa ean kaga nimidnay, ayaanu waxaanu kala baxnay wixii hanti ku jiray ee ninkii hore lahaa. aanu gaadhigii yaraa tagsiga kala baxnay, dimbartii baanu kaga tagnay, waxaanu raacnay gaadhigii kale aanu kaxaysanaa. gaadhigii kale markaan kaxaysanay isagana wixii hanti ninkii uu sitay iyo tii uuna siinay iyo wixii baanu ka guranay, dadna gaadhigiina isagana meel dhaxaan kaga tagnaa. markaa saasaanu ku dilay buu yidhi labada dambi, macnaha labadaa qofba saasaanu ku dilnaa. saa isla markiiba askartii waxay tageen gurigii ninkiiyo naagta, waxayba ka soo heleenba dhammaan daliiladii iyo cadaymihii labadii dil ay geysteenba. markay soo heleen aduu labadii qof waa la maxkamadeeyey, waxbayaan hadalkeedu ku dheereen. labadii qof maxkamad baa la saaray, waxaa lagu xukumay labadoodiiba dildalaada. laakiin ninka hadda tagsiilaha koley inkastoo ilaahay uu qofka de ilaahay badbaadinayo oo halku ku dhimanayo ilaahay garanayo, waqtigu dhimanayna ilaahay garanayo, laakiin haddana wuxuu ahaa nin ka feejigan dadkii hore ay soo dileen. saas darteed buu ku badbaaday. maanta haddii ninkan ay dili lahaayeen oo aanu badbaadin, lama ogaadeen dilalka hore geysteen haddii aanu ilaahay u qadarin. marka ninkan feejignaantii wuxuu ku darsaday inuu ka taxdaray oo isla markiiba uu fahmay waxay maagan yihiin. waayo markay dagaal bilaabeen ee dagaalkooda sii bato, kol qofka markuu ujeedo leeyahay ilaahayna ku badbaadinaya waa fahmaysaa. markaa wuxuu yihi markiibaan waan eegay, marba waan yar eegay dee aduu maskaxdiisu adeegsaday in badan uu ku shaandheeyey, iyo markiisa hore waxaa sirbacdiisu shaqaynaysay ayuu ku badbaaday. walciyaadu billaah, ilaahay inaan dad dilana laguma salido, anagana nala dilo. aad baan idiin salaamay dhammaantiin. sheekadiini saasay ku dhammaatay. waxaan rajeynaya inaad ka heshaan. haygala bakhaylna subscribe-ta, like-ta, fikradiina waxaa idinlan tahayna commentiga kusoo qora. sheekooyinka dad jeceshin idiin soo badiyana ay soo sheega insha allah. aad baa idiin salaamay dhammaantiin.